السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادة حقيقة تي في مانتي توحى إذن هينا ورا الحقيقة وسجن وريه عنك هاي ذلك السعودي قاعد شيء ولقود للسفارة السعودية وكل يهدالك تركيشكا وري جمال قشوقجي دلكيسي يا ولدي لوادو كنت واني سيدة ما أنت أيت لوادو كن لواتني كودة أيا ماشى عمر أيا إذا كده بجين ربا إن شاء الله جمال قشوقجي وحوها وريا عنه دليل سياسة السعودية لوادو كنت واني اللحظة أيا لقود للقنصلية وكل يهد سعودية دالك تركيشكا كبعدي waxaa si cad ugu eedeeyay dilkaas inay ka dambeysay dawladda Sacuudiga dawladda Turkiga oo lagu dhax dilay Jamal Khashoggi dalkeeda ila walaaliya lagu kalsoon yahay ayaa sheegayo in Jamal Khashoggi lagu dilay amar ka soo baxay Mohamed bin Salman oo ah dhaxal sugaha dalka Sacuudiga wararka ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in جمال قشوقجي دلكيسا وكدنبيي دحال سوغاها دالكا السعودية حلبانات إلهان عمر oo ka tirsan Congress-ka maraykanka ayaa mooshin ka dhan Jamal Khashoggi u gudbisay Congress-ka maraykanka dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohamed bin Salman ayaa waxa lagu eedeynayaa inuu yahay dictatori laaya dadka u dooda xuquuqul insaanka iyo wariyaasha madaxa banaan iyo dhamaan dadka ka soo dhaliila fikrada dalka Sacuudiga xildhibaanad Ilhaan Umar oo ka tirsan Congress-ka maraykanka waxay eedeyn qoto dheer la dul istaagtay Mohamed bin Salman ayada oo daliilsanaysa xaqiiqooyin laga helay sirdoonka caalamiga ah ee dalka maraykanka kaas oo lagu kalsoonaan karo waa markii ugu horeysay oo sirdoonka maraykanka si cad ay u sheegaan in Jamal Khashoggi uu ku baxay amar ka soo baxay Mohamed bin Salman oo ah dhaxal sugaha Saudi Arabia warqad dheer ay u gudbisay Ilhaan Umar Congress-ka maraykanka ayaa waxay ku dalbatay Mohamed bin Salman inuu yahay nin dictatori ah dilay Jamal Khashoggi waxay qoraalkaas ku cadeysay in cunaqabatayn la saaro Mohamed bin Salman lana cadaadiyo si loo ilaaliyo badqabka iyo sharafta muwaadiniinta ku nool dunida dhamaanteed maadaama uu ku xadgudbay ama uu dilay wariye aan waxbana galabsanin sida ka muuqata qoraalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi